wakaalada madbacadda qaranka Soomaaliland ayaa qabatay shir ballaaran oo isugu keentay hay'adaha dawladda, jaamacadaha dalka iyo ganacsatada waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkan ayaa ahaa mid mas'uuliyiinta madbacadda qaranka Soomaaliland ay xoog ku saareen inay ku soo bandhigaan mishiinadii ugu casirsanaa iyo daabacadii ugu dambeysay oo dhawaan ay bilaabi doonaan. Waxaana laamaha dawladda, ganacsatada iyo jaamacadaha dalkaba ay u soo jeediyeen inay qiimo jaban iyo tayo sareysaba ay kaga heli doonaan madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horeyntii Cabdirashiid Balal, Axmed Maxamed iyo Maxamed Cadaawe oo ka mid ah mas'uuliyiinta madbacadda qaranka Soomaaliland ayaa ka warramay waxyaabaha ay ku soo bandhigeen shirkan lagu xoojinayo xiriirka macaamiisha iyo madbacadda qaranka Soomaaliland. Saciid Xuseen Yuusuf oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Samkaas ayaa xukuumadda ugu baaqay in ay xoog saarto in ay wax ka daabacato madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. soo jeedinta horta waxa weeyaan in horta dawladdu ay is-aaminto marka horeysa. waxaad arkaysaa wasaaradda Hiblaayo waxay ka daabacanaysaa private, wasaaradda kale waxay ka daabacanaysaa private. hadday dawladdu is-aamin oo iyadu resource-kaasi dib aan ugu noqonin, ganacsatada idin joojin mayso, idna iman mayso. waayo ninkii hadduu soo kabtiisa tolo kari waayo, inna kabtiisa u keeni maayo. waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan agaasimayaasha halka fadhiya inay wasaaradda kula noqdaan in madbacadda qaranku ay noqoto sooska quraata ee horta qaranku wax ka daacay dawladdu. shicibku iyo ganacsatada markaas uu eeganaya oo uu daba soconaya. agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Cabdiraxmaan Maxamuud Abideeq ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay waxa laga yaabaa documentka dawladdu inuu koobnaa laakiin maanta capacity badan ay dawladdu leedahay waxyaabo badan bay daabacdaa taasina waxay ku xidhan kartaa wax soo saarkiina sidaa daraadeed horta guul baan dirajeenayaa hase haatee in magaranayay dawlad iyo shacabba aan cadow la isku arag ee la wada shaqeeyo ayaan kulli anigu dhiijihan وزارتهان يدولتهان بوسول وين يديار والله ولا شقين والسلام عليكم. agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda Cali Cabdilaahi ayaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay. madbacaddu waa hay'adaha wax soo saar ee qaranku leeyahay waliba kuwa ugu muhiimsan baan oran karaa waayo de sector weyn oo aad u ballaaran ayay dabooshaa. marka kicitaankeeda iyo taageeradeedu waa mid laynaga wada doonayo public iyo private ba. Jamaal Cabdi Muuse agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha ayaa ka warramay muhiimadda uu shirkani lahaa. shirkani maxaa go'aan ka soo bixi karaa? aniga waxay la tahay kow fariin baa inagu socota saddex qaybood inagoo ah. ta koobaad waxa weeye laamaha dawladda. saddexdeeda agaasima guud Maxamuud markaan iska raabna ayaa ka wakiila. anigoo afkooda ku hadlaya waxaanu ballan qaadaynaa inaanu la shaqeyno ka dawlad ahaan madbacadda wakaaladda madbacadda qaranka xidhiidhkii hore mid ka weyn aanu la yeelano institutionka dawligaana aanu soo kicino dhaqaale ahaan iyo shaqo ahaan labadaba. qaybta labaad waa baahda waxbarashada. baahda waxbarashada idinkana waxaanu idinka doonaynaa commitment ah inaad wakaaladda si wanaagsan ula shaqaysaan, daabacadda aad u hurtaan, fadlan dibadda lagu horday inaad inaga daystaan oo halkan aynu adeega ka helaynaaye wixii xirfad ka dhiman intaad ku caawisaan aynu halkan ku dhammaysana hawsha. annagu waxaanu soo dhaweynaynaa bishaaradii aad noo sheegteen anoo bahda waxbarashadoo dhan ku hadlaya bishaaradii aad noo sheegteen ee aad ugu bishaarayseen dadka waxbarashada ee aad ugu bishaarayseen inaad u daabacad tayo leh oo waqti habboon ku soo baxda oo qiimaheedu macquul yahay inaad noogu bishaarayseen oo markii hore aan wadanka oolina dibadda yaalay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan idinka guddoonay bishaarada haddaad tihiin madbacadda qaranka. ugu dambeyntii maareeyaha guud ee wakaaladda madbacadda qaranka Soomaaliland mudane Maxamuud Raage Ibraahim ayaa soo xiray shirkan ganacsatada iyo madbacadda qaranku ay ku xoojinayeen xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxeeya. waxaan ku ballanay markoowaad wax kasta oo aawaana tiraahdeen wax kasta oo aad tala samayseen way duuban tahay. maadaama ay duuban tahay ma in la duubtaa la tuurayaa may aniga iyo shaqaalahayga waa dhegaysanaynaa wixii nuxur iyo talaan waa qaadanaynaa sidii aan noo tiraahdo. waxaan idiin ballan qaadayaa insha allahu tacaala inaynu daboolno baahida daabacadeeda qaranka Soomaaliland waa hiigsigeenna koowaad. inaynu daboolno baahida daabacadeed ee shacabkeena Soomaaliland qabo. inaynu isku dayno inaynu daboolno baahida daabacadeed ee dadka aynu jaarkana walaalahana deegaanka sida dawlad deegaanka oo kale ama Djibouti oo kale with good quality, good price, adequate service.